dowladani waa dowladii ugu horeysay oo bixisay waxbarasho free ah oo lacag la'aan ah 65 arday yaan waxaan siinaa waxbarasho cusub oo waliba dad badan oo aniga aan ka mid ahay oo da'deyda ah ama igu dhowdhow ama iga waaweyn intaba ay aad u xasuustaan macnaha ay leedahay iyo maanta markaan waalid noqonay ee bisha aakhirkeeda nala weydiiyo muxuu ahaay $10 $15 ama maxaan ku raadaay $50 oo jaamacadii ah yani iyo sidaan annaga wax ku soo baranay oo ku nimiday marka labada la isbarbar dhigo ayaa waxa ka soo baxaya runtii waxa ay tahay xaqiiqada dhabta iyo muhiimadda uu leeyahay public schoolka in meel la yiraahdo public school oo hooyada maxaan ku raadaay IDB-ga ku jirta ama hooyada Soomaaliyeed ee maxaan ku raadaay tabarta daran ee faqriga iyo dhibaatada barakacu haysta maxaan ku raadaay ilmaha inta guriga kaga tagta saakay u qaraab tagaysa ee cunugiyo gadaasheed wuxuu doono sameeyay meesha raba ka dhacay ciday doonto inta wadatay waxay rabto u sheegtay oo maskaxdiisii muxuu ahay waxay doonto gelisay caawa iyada oo waxoogaa yar oo muxuu ahay la cuno u wada u soo noqonayso ee biri hadana meeshii ka bilaabaysa aan cunugi ka warqabin meeshuu ka baxay waxa uu baranayo cidda maskaxdiisii qaabeynayso oo dib maxaa u sheeggareynaysa aanan la garanayn waa waxa aan soo marnay 22 sano oo saas u soo socday maanta marka 22 sano hawsha soo socotay oo la gooyay oo la jaray waay oo caruurteeni iyo jiilka cusub ay loo jeediyay meesha hadda wasiiradu ay tilmaantay ee ah xildhibaankii iyo dhakhtarkii iyo siyaasigii iyo injineerkii iyo madaxweynihii berri inaan maanta muxuu ahay diyaar gareyntoodii iyo ka shaqeyntoodii oo muddadan daba aanan ka shaqeynin inaan maanta u jeesanay inaan ka shaqeyno mashruuca aada dugsiyada aad iyo aad ayuu marka qiimigaas weyn u leeyahay waxa dawladdaana ay qabatay waxa ugu qiimiga badan oo ugu macnaha badan ayuu runtii uu ka mid yahay marka mashruucan waxaan leeyahay hambalyo wasiiradda iyo tiimkeeda la shaqeeyay